يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب وفقنا بما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين. أحبابي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. rabbi baa mahad iskale subxaanahu wa tacaalaa, mahad aad iyo aad u badan oonu soo koobi karayn. waxaynu ka soo hadlaynay wakhtiga iyo ahmiyadda uu leeyahay. wakhtigu waa cumrigaagii, waa xayaatadaadii. haddii aad ka faa'iidaysato waxaad ka faa'iidaysatay noloshaadii iyo xayaatadaadii. waxaad ilaahay hortiisa subxaanahu wa tacaala aad ka helaysaa khayr aad iyo aad u fara badan. haddii wakhtiga aad ka faa'iidaysan weydood ku dayacdo maa laa yacni iyo waxaan qiimo lahaynna, wuxuu kuu noqonayaa khasaaro iyo wabaal maalinta qiyaame laga shallaayo. in badan baa qur-aanka kariimku inooga sheekeeyey dadka liibaanay ee aflaxay ee rabbi agtiisa subxaanahu wa tacaala daaralkhuldi iyo jannaatilfirdowsa ku leh, iyo dadka khasaaray ee allah agtiisa subxaanahu wa tacaala naarta ku waarahaya. dhammaantood markaad u taabagasho fiirsato waxaad ogaanaysaa qaybaha dhowrkaa in qolena wakhtigeeda ay ka faa'iidaysatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala daacadiisa iyo xayaatadiisa daacadiisa ay ku camirtay. qolada kalena ay wakhtigooda ka faa'iidaysanay dayacday baad arkaysaa. culimmadu raxmatullaahi calayhim waxay leeyihiin iyagoo wakhtiga ka hadlaya, alwaqtu huwa alxayaah. wakhtigu waxa weeye waa nolosha dhabtaha weeye. faman adaaca waqtahu faqad adaaca xayaatahu. qofkii dayaca wakhtigiisa wuxuu dayacay xayaatadiisuu dayacay. wasayus'alu can haada atadyiic. waana la weydiinayaa qiyaamaha sababta u dayacay wakhtigiisa, sababta xayaatadiisa u dayacay, sababta naaftiisa ugu horseeday naarta, sababta uu gaboodfalay ee ilaahay uga fogaaday. waa la weydiinayaa qiyaamaha. maxaa kuu kelifa baa la odhanayaa? cumrigaagii, dhallinyarannimadaadii, xoolahaagii, cilmigaagii, wujuudkaagii adduunyada ilaahay ku keenee kuwa abuuray inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii caabuddo. maxaad ugu dayacday waxyaabo kaleoo maalayacni un qiimo lahayn? asiladaasoo dhan waa asilo waalid oo qofka la weydiinayo weeye. marka qofka inta adduunyada ku nool yaha la doonayaa asilada noocaas oo kale ah inuu ka jawaabo intaan qiyaamaha la weydiinoo jawaab uu waayay. marka hadalladooda waxaa ka mid a wakathiiru min annaasi maqbuunun fii waqtihi fa huwa khaasirun fiih. dad badan waxaa ka mid ah wakhtigoodaa kadinaya, sidaa daraaddeed buu khasaaro ku jiraya. khasaare aad iyo aad weyn buu ku jirayaa. wakhtigii qiimaha badnaa qofku kama faa'iidaysan. mawaasimu taacad baa soo maraya qofka. waxaa soo maraya wakhtiyo faadil ah, salawaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala la oogo. waxaa soo maraya mawaasimu taacaat. waxaasoo dhan qofku dheg oogama dhigay. marka sidaa daraaddeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam hadalladiisa waxaa ka mid ah xadiiska abaa hurayra radia allahu canhu. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, man khaafa adlaja waman adlaja balaqa almanzil alaa ina silcata allahi alghaaliya alaa ina silcata allahi aljanna. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii baqa wuu guureeyaa, qofkii guureeyana wuu gaadhaa meeshii uu doonayay. sidaa daraaddeed baa silcada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa qaali weeyaan. ilaahay badeecadiisa waa qaali weeye, jannadaana ugu qaalisan. allah subxaanahu wa tacaala, alaa ina silcata allahi aljanna. silcada ilaahay, badeecada ilaahay jannada weeye. waana midda dadku ay u tukanayaan darteed.
oo midda dadku ay doonayaan inay kaga badbaadaan naarta ilaahay subxaanahu wa tacaala. waxyaabahaasoo dhamm axbaabi fillah waxay nagu boorinayaan inuu qofku iska ilaaliyo lisaankiisa, inuu qofku gacantiisa iska ilaaliyo, inuu qofku lugihiisa markuu soconayo uu socdile waqti baa ku soconaya, inuu qofku iska ilaaliyo afcaasha uu samaynayo iyo akhlaaqiyaadka qaar, sababta markuu qofku samaynayo waqti baa ku socda. walwaqtu anfasu ma canayta bihi wa araahu ashalu ma calayka yadiicu. dadka inta badan waxa weeyaan waqtiga qiimo uma yeelaan. waxaad arkaysaa qofku sidaa ugu basiidsan ama sidaa ugu dhib yar qofku inuu waqtigiisa ku dayacayo, laakiin haddii ogaan lahaa waqtiga ilaahay subxaanahu wa tacala in ku dhaartay oo ilaahay u weynayay subxaanahu wa tacala, waxaad arkaysa dadka u kala tartami waqtigiisa. marka qof walbaba waxaad ogaataa intaad ku dadaashayd waqtigaaga ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xayaatada ku toosinaya. caalamka maanta dadka tiknolojiyada gaadhay, dadka daaraha dheerdheer dhistay, waxay geliyeen waqti bay geliyeen. waqtiguna waa shayga ugu qaalisan ee qofka insaanka ah. marka waqtiga ay geliyeen hadday daacada ilaahay subxaanahu wa tacala ay ku dari lahaayeen aliimaan billaahi wa birasuulih, waxaad arki lahayd in khayr badan iyo falaax badan iyo liibaan badan halkaa inay ku heleen baad arki lahayd. laakiin qofku haddii uu daara keliya iska dhisto oo adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uusan ku fikirin maalinta qiyaamo, waxaad arkaysaa qofkaasi khasaaro badan inay u dambayso arkaysaa. marka waxaa naftayda iyo dhammaan muslimiinta oo dhan aan u dardaarmayaa inaan ku dadaalo waqtigeenna, sababto waa xayaatadeenna wey. markaad socoto akhilcasiis waqtilcasiisa waxaad ku dadaashaa inaad allah xuso subxaanahu wa tacaala. subxaana allahi walxamdu lilaah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billahi. waxba kaa dhibi mayso. waa kelimataan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku magacaaba, kelimataan khafiifataan cala lisaan thaqiilataani fi lmiisaan. waa laba subxaana allahi wabixamdihi weeyaan, waa laba kelimadoodoo khafiifa weeyaan xagga lisaanka oo qofku markuu ku qowlayo aad bay u dhibar subxaana allahi wabixamdihi subxana allahi alcadiim. laakiin thaqiilataani fi lmiisaan, miisaanka alle subxaanahu wa tacaala, fa amaa man haqulat mawaasiinuhu fa huwa fii cishatin raadiya. waxaad arkaysaa inay ku culusaad arkaysaa meel weyn bay ka taagan tahay. markaad socoto ilahay dikrigiisa badi subxaanahu wa tacaala. markaad meel fadhidaanna haddee ilaahay xusa subxaanahu wa tacaala, sababto xuska ilahay aad xusayso wuxuu soo gelaya wamaa khalaqtu aljanna walinsa ilaa liyacbuduun. markaad jalasaad iyo shirar iyo isugu timaadaan majaalisna hadda waxaa soo gelaysa laa khayra fii kaiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw islaaxin bayna annaas. marka waxaa laga maarmaana ilaa man amara bimacruufin aw islaaxin bayna annaas aw sadaqa. marka waxa weeye qofku marka xayaatadiisa oo dhan wuxuu noqonayaa markuu socdo iyo markuu fadhiyo iyo markuu jiifo iyo markuu gurigiisa joogo iyo markuu shaqadiisa joogo, qof waqtigiisii oo dhan xayaatadiisa ku camiray buu noqonayaa oo daqiiqad waaxida ay ka dhumin. halkaa daqiiqee kaa dhuntay waxay noqonaysaa wabaal caleyk, khasaaray kugu noqonaysa adiga. waxaadna ka shallaayi doontaa markii xisaabaadka la gala dhabta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waqifuuhum innahum mas-uuluun. qof walba la joojiyo oo su-aale la weydiiyo, markaasuu qofku garan doonaa xayaatadiisii maalmihii yaraa ee dunyada uu joogay inuu kaga faa'idaystay iyo in kale, markaasuu garan doonaa. hadda waxaa laga maarmaana wakhtigaaga eeg, xayaatadaadana intay laagtay eeg. xayaatadaada ma ogeyd wakhtigaaga intuu dhanaan doono, intaad noolaan doonto allahu aclam, ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala. laakiin wakhtigu qaarna waxa weya midna waa kii ku dhaafay, midna waa ka markaa aad joogto, midna waa ka soo socda. kii ku dhaaftay carabtu waxay tidhaahdaa illi faata maata, wax laaliya wixii ku dhaafay oo dhan waa wax dhintoo kalead ka soo qaadaysaa. marka wakhtiga soo socdana ma ogid inaad gaari doonta in kale, laakiin wakhtiga aad joogtaa lagaa doonayaa inaad ku camirto daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama aadan hubin wakhtiga soo socda. ilahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga dhigo kuwii wakhtigooda ku camiro daacadiisa, kuwii jidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku taagan inta ilaahay ay kala kulmayaan. hada wallahu aclam, wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu, wajazaakum allahu khayra.